kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah xiisadii u dhaxaysay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo cirka isku sii shareertay iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo jawaab culus ka bixisay go'aankii ay Kenya ku joojisay duulimaadyadii labada wadan. Xukuumadda Muqdisho oo dalka ka celisay jaadkii ugu badnaa oo laga keenay Kenya. xoogihii ugu dambeeyay ee xiisadda labada dal oo gaartay meeshii ugu xumeed ayaan idiin soo gudbin doonaa. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo bilaabay ole lagu taageerayo madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Midowga Afrika ahna madaxweynaha Kongo oo booqasho lama filaan ku tagay Itoobiya. maxaa ka jira in Itoobiya ay Midowga Afrika ku cadaadinayso inay bedelaan ergeygii ay u magacaabeen Soomaaliya maadaama uu ka hor yimid madaxweyne Farmaajo oo saaxiib la Itoobiya. wararkeena kalena waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo bixisay sirta heshiiskii mucaaradka iyo xukuumadda dhexmaray. maxaa ka jira in dawladda federaalka lagu heshiiyay inay bedesho saraakiisha ugu sareysa ee ciidamada. wasiirka amniga oo bixiyay xogo lama filaan ah iyo nuxurka heshiiskii mucaaradka iyo dawladda iyo qaar kamid ah dalalka islaamka oo ku dhawaaqay xilliga ay ku beegan tahay maalinta koobaad ee Ciidul Fidriga. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen talaado ah 12 bisha shanaad ee May sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane. fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinkoo ku share gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. xiisadii u dhaxaysay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku sii shareertay xilli dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay jawaab culus ka bixisay go'aankii ay Kenya ku joojisay duulimaadyadii ee labada wadan. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay go'aankii dawladda Kenya ay ku joojisay duulimaadyadii ka imaan jiray Kenya sidoo kalena tagi jiray dalkaasi Kenya iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in go'aankaasi uu ahaa go'aan lama filaan ah. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Durraan Axmed Faarax oo ka jawaabaya go'aankaasi ayaa ku tilmaamay mid aan rasmi ahayn maadaama uu sheegay inaysan dawladda Kenya ku soo wargelin arrintaasi taasina ay ka baxsan tahay xeerka diblomaasiyadeed. wasiir Durraan ayaa sheegay in go'aanka ay Kenya ku joojinayso duulimaadyadii Soomaaliya iyo Kenya ay kaliya ka arkeen warbaahinta taasi oo mar kale madmadow gelinaysa xiriirkii diblomaasiyadeed ee dhowaan ay soo ceshadeen labada dal. weliba waxa ay markaan gaaraysaa meeshii ugu xumayd. waxa uu ku sifeeyay tallaabada Kenya mid la yaab leh xilli maalmo kooban horteed la xaliyay xiisadii diblomaasiyadeed si buu yiri labada wadan ay dadka dariska ah noloshooda si caadi ah ugu soo noqoto. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilowday wada tashiyo kala duwan oo ku aadan go'aanka Kenya kaasi oo looga jawaabayo tallaabadaas oo aysan ku soo wargelin dawladda sida uu sheegay wasiir Durraan. hadalkan ayaa imaanaya xilli dawladda Kenya ay qaaday tallaabo u muuqata mid aargudasho ah kadib markii ay dhowaan dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday in uu weli hakad ku jiro keenista qaadka nooca mirowga ee laga keeni jiray dalkaasi. hay-adda duulista hawada ee dalka Kenya ayaa shaacisay in la hakiyay dhammaan duulimaadyada ee diyaaradaha ka imaada ama taga Soomaaliya marka laga reebo kuwa gargaarka iyo diyaaradaha gaarka ah ee la shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in go'aankan uu dhaqan gelayo laga bilaabo maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 11 bisha shanaad ee May sanadka 2021. dhinaca kale xukuumadda Muqdisho ayaa dalka waxay ka celisay jaadkii ugu badnaa oo laga keenay dalkaasi Kenya iyadoo ganacsatada qaadka ee Kenyana ay sheegeen inay khasaareen dhowr malaayiin oo lacagta dollarka ah. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay iyadu markaasi sheegtay in ay dalka ka celisay qaadkii ugu badnaa oo kaga yimid dhinacaas iyo Kenya kadib markii dawladda Kenya ay iyadu sheegtay in ay heshiis la gaartay Soomaaliya taasi oo keentay in ganacsatadii qaadka ka keeni jiray Kenya ay u diyaar garoobaan in ay jaadkoodii markaasi iyagu dib ugu soo iibgeeyaan Soomaaliya. ganacsatadan qaadka ee Kenya waxay shaaciyeen inay ku hungoobeen soo celista xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii laga xareeyay qaad ay soo dhoofiyeen ama ay u soo dhoofiyeen magaalada Muqdisho oo dawladda Soomaaliya ay dib u celisay.
dowladda Soomaaliya ayaan weli fasaxin qaadka Kenya in la keeno gudaha dalka, waxayna ganacsatada Kenya sheegeen in soo celinta xiriirka kadib ay filayeen in qaadka ay u soo dhoofin karaan dalka, waxa ayna xalayto qaad fara badan geeyeen garoonka diyaaradaha ee Nairobi. ganacsatada ayaa sheegay in qaadka ay geeyeen garoonka laga xareeyay markii ay dowladda Soomaaliya diiday in qaadka la soo geliyo caasimadda, taasi oo la rumaysan yahay inay keentay tallaabadii ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyada ka imaanaya ee Soomaaliya iyo kuwa aadayaba. Nuuriye Cabdi Nuur Xasan oo ka tirsan ganacsatada qaadka oo la hadashay warbaahinta waxay sheegtay in khasaare lixaad uu ka soo gaaray qaadka ee laga xareeyay, iyadoo sheegtay in lacagihii ay ku shaqaynayeen ay Soomaaliya uga xayiran yihiin sida ay hadalka u dhigtay. arrintan ayaa waxay ka daraysaa xiisadda ee labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo imika si aad looga dayrinayo. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan. dowladda Ethiopia gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa waxa uu bilaabay olole lagu taageerayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa dalkaasi Ethiopia gaaray isla markaana booqasho lama filaan ku tagay madaxweynaha Congo oo ah madaxa ugu sareeya ee ururka Midowga Afrika, ninka la yiraahdo Tshisekedi ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, isla markaana ay ka wada hadlaan go'aankii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku diiday ergigii Midowga Afrika u soo magacaabay dhexdhexaadinta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Abiy Ahmed ayaa ku cadaadinaya madaxda Midowga Afrika inay ka laabtaan isla markaana ay isbedel ku sameeyaan ergigii ay u magacaabeen Soomaaliya, maadaama ergigaasi uu ka hor yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa saaxiibo aad isugu dhow, waxaana ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu Farmaajo kala shaqeynayaa sidii Midowga Afrika uu go'aankaasi uga laaban lahaa isla markaana loo bedeli lahaa ergigii loo soo magacaabay Soomaaliya oo ah madaxweynihii hore ee dalka Ghana Mahama ninka la yiraahdo. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ergeygan uusan dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha doorashooyinka Soomaaliya sabab la xiriira in uu saaxiib dhow leeyahay dowladda Kenya, taasina ay keenayso in uu dhinac la safto maadaama ganacsi uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. si kastaba booqashadan lama filaanka ah ee madaxweynaha Congo Tshisekedi uu ku tagay dalkaasi Ethiopia ayaa lagu waramayaa in ay la xiriirto arrintan ku saabsan ergigii ay Midowga Afrika u soo magacaabeen arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dhexdhexaadinta doorashooyinka iyo go'aankaasi ama magacaabistaasi oo uu ka hor yimid madaxweyne Farmaajo. Abiy Ahmed ayaana kala shaqeynaya madaxweyne Farmaajo in la bedelo ergeygan lagu magacaabo Mahama oo horey madaxweyne uga soo noqday dalkaasi Ghana. waa xagaag haatanna haddii aynu fiirino xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskii ay la gashay mucaaradka uusan ku jirin qodobo ay ka mid yihiin in la bedelayo taliyaasha ciidamada qalabka sida. wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo warbaahinta u waramay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda aysan hadda qorshaha ugu jirin in isbedel lagu sameeyo taliyaasha ciidamada. taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, taasina waa mid u taalo maamulka ra'iisul wasaaraha. haddii ay ku timaado talo kale iyadu markaasi timaado waa meesheeda, ayuu yiri. qodobka aan ku heshiinay waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 10 qodob, waana ay cad yihiin, ayuu yiri wasiir Xundube. hadalka ka soo baxay Xundube waxa uu ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay jireen hadalhayn ku saabsan in ra'iisul wasaare Rooble uu isbedel ku sameyn karo taliyaasha ciidamada si uu u helo kalsooni badan. hadalhayntaas waxa abuuray qodobka 6aad ee heshiiska ay 5tii bishan May ee ku gaareen Muqdisho xukuumadda iyo mucaaradka, kaasi oo soo afjaray xasaradihii iyo isku dhacyadii hubeysnaa ee ka taagnaa magaalada Muqdisho. qodobkaasi waxa uu xeerinayay in dib u habeen lagu sameeyo hoggaanka hay'adaha ammaanka, kaasi oo ka soo tala bixin doona guddi khubaro ah oo ra'iisul wasaaruhu uu magacaabi doono, inkastoo guddigaasi aan la magacaabin ama aan la shaacin iyo waliba sidoo kale muddadiisa. si kastaba xukuumadda iyo mucaaradka ayaa ka heshiiyay xasradihii dhawaan ka taagnaa magaalada caasimadda Muqdisho. ugu dambeyntiina waxaa bilowday inay dalalkii ugu horeeyay ee islaamka ay shaaciyeen Ciidul Fidriga iyo xilliga ay ku beegan tahay, iyadoo maanta inta badan dalalka islaamka ay wahayd 29 bisha barakeysan ee Ramadaan.
dalalka xilligan ay habeenka u noqotay ilaa iyo 3 saacadood iyo in ka badan ka horeeya geeska Afrika ayaa ku dhawaaqay xilliga ciida. dalka Indonesia 4 saac ayuu ka horeeya Soomaaliya, waxa uu shaaciyay in Ciidul Fidriga ay ku beegan tahay Khamiista oo taariikhda ay ku beegan tahay 13 May, iyada oo biri oo Arbaca la soomi doono 30 bisha Soonqaad. Guddiga dowladda Indonesia ayaa waxay sheegeen inaysan jirin meel laga arkay bishii Shawaal, sidaa daraadeed la dhameystirayo 30 Ramadaan, Khamiistuna ay noqon doonto maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga. dalka Malaysia ayaa sidoo kale shaaciyay in Ciidul Fidriga ay ku beegan tahay Khamiista 13 May kadib markii aan la helin bishii Shawaal. dhinaca kale, golaha ay leeyihiin imaamyada muslimiinta ee dalalka Australia iyo qaybo kale oo dalalka Singapore ay ku jirto waxay shaaciyeen in Ciidul Fidriga sanadkan loo dabaaldegi doono Khamiista 13 May markii ay sheegeen in ay bishii Shawaal arki waayeen. dhinaca kale, Soomaaliya ayaa weli bishii oo caawa ay markaasi 29 tahay laga baadigoobaya qaybo badan oo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. sidoo kale, Sacuudiga ayaan weli wax wara ka soo saarin amaba aan go'aan ka gaarin in la ciidayo biri iyo waliba sidoo kale in biri la dhameysanayo 30 Ramadaan. haddaba wararka ku soo kordha ciida oo weli markaasi maalinta ay tahay laga raadinayo Soomaaliya iyo meelo kale oo dalalka Islaamka kamid ah, wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena, tan iyo warkan war la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.